madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada Galmudug xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay xubnaha wafuudda la socota madaxda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay inoo tahay aniga dowladda iyo shacabka Galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya shirkani wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dowladda Galmudug waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hogaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogashan inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinii iyo howlmaalmeedkiinii haddana waxaad u timaadeen gogasha Galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dowladnimada Soomaaliyeed walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay'adaha dastuuriga ah mudanayaal iyo marwooyin ujeedada gogosha Galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah taas macnaheedu ma ahan in ay taladu inaga inagu kooban tahay sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhamaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanazul is-ogolaasho talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla mudanayaal iyo marwooyin dalkeennu wuxuu soo maray geedi socod dib u heshiisiineed oo dheer markii ugu horeysay wuxuu mira dhalay sanadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Djibouti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyay dhinaca
dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaaleynta dalka. muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faanta ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar. doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. mudanayaal iyo marwooyin, xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taalla gaar ahaan caasimadda. waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo. walaalaha Soomaaliyeed waxaan u cadeynayaa in ujeedada gogoshan ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale xal ka ahaato dhammaan howlaha taagan ee u baahan maareynta. mar kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dawladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadeynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya. mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharafta waa u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca dawladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug. waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin, soo dhawaada, ku soo dhawaada deegaankiinni iyo dalkiinni, ku soo dhawaada taladiinni oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wada jir ah, is-afgarad iyo heshiis loo aayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدحوينها مرتين لو يهي قلبي أحمد غورغور صاحب إذا كلا ولا سعودية مرتين وهاي سايا مدحوينياشا كونفور قلبي بنتلان يهير شبال madaxweyne ku-xigeenka galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa, dhammaan reer galmudug, baarlamaan iyo wasiire iyo shacabba, iyo inta kale ee martida ah ee la socotay madaxweyneyaasha, madaxda xildhibaanada ka socda labada aqal ee dowladda federaalka ah, bulshada rayidka ah, iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo madaxweyne axmed qoorqoor iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo reer galmudug sida aada iyo aada xushmadda iyo ixtiraamka u lahayd ee u soo dhaweeyeen wufuuddii u timid iyo nooca qabanqaabada shirkan oo aan isleeyahay iyadoo lalahaa war galmudug sida ay saaxiibaday sheegayeen waqtiga aan qabanay oo la yidhi 7 bisha 8 aan shirka qabanno, madaxweynuhuna uu safar markaa ku jiray, ma qabsoomi karaan iyo ma iman karaan ay u qaateen inay waqtigaas qaabtaan. iyo qof kastoo imanayo waftiyada ka mid ahay waxa uu filayay waxaan ahayn uu la soo kulmay. waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo, aan idhaahdana galmudug maanta waxay ku taagan tahay waddo fiican, dadnimo hore ku jirtay way la soo wada baxeen. maantana waxay ka muuqataa dhuusamareeb iyo reer galmudug soo dhaweynta marka laga soo taga haddana sida ay u diyaarsan yihiin iyo dowladnimada ay raadinayaan iyo qabanqaabada ay isugu wada yimaadeen.
ma koobi karo laakiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihi intaa marka laga soo tago shirkaani muhiimadda uu lahaa waxaa ka hadlay saaxiibka martida loo yahay iyadoo aan filayo in mar walba yuusuf garaadne uu halkiisa dhaan wada ku darsanayay inuu yahay shir maanta qof walba uu soo fiirinayo waxaa laga filayaana uu yahay wax ay keentay xaaladda lagu jiraay inay sababtay filitaanka shirkan wax laga filayaay mid waktiga ku xigan inuu yahay taariikhda ay soomaaliya soo martay isma weydiinayno marxaladahay soo martay ee kala duwanaa laakiin waxaa hadda inoogu muhiimsan burburkii kadib soomaaliya inay qaaday tallaabooyin horey loo qaadayo oo dowladnimada lagu soo uruurinayo laga soo bilaabo carta imbagaasi doorashadii 2012 muqdisho 2016 muqdisho marka lagu daro intii jabuuti isku darkii faraha badnaa intaasoo dhan waxay tusaysay soomaalidu ididiilo iyo amaal muujinaysay sida ay soomaalidu ugu baahan tahay bal inay ka guurto dhibaatadii iyo caqabadihii la filayey oo nooc dowladnimo ay u guuraani inay ahayd midda marxaladaha keenaysay oo qof kastoo siyaasiya soomaaliya oo damac siyaasadeed ku jiro uu ka fakerayo alleelehe hebel baa qaatay hadduu qaatay u daa afarta sanaan isdiyaarinayaan waxaa lagu gaadhay inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wadatashi isla ogolaansho iyo dadku inay markaa waxay isla ogyihiin ay ku meel marayaan ay gaadhaan waxaa hubaal ah oo meel looga wareego aan lahayn guddiga doorashooyinka ee maanta jira markii la dhisayey iyo markii ka horreysayba waxaa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaadho waa hamiga qofka soomaaliyeed oo qof waliba ku fakerayo doorasho noocaasa inay dhacdo haddana mar walba waxaa waaqaca runta sheegayey wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeenu uu ku jiro oo u baahan inta taa la gaadhayo wax badanoo hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayd looma fadhiisanayo marka oo lama odhanayo waan gaari weyney sidan aan yeelna haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxayn karaa loo xagtaa sidii lagu badbaadin karayo ama see xeegana loo xagtaa ilkana ku nabadgalaano mar walba haddana isbeddelkii iyo damcii iyo amaashii inay socoto inay tahay midda dowladnimada soomaaliya aasaaska u lahayd 2016 markii laga hadlayay waxaa aada culayska loo saarayey inay dhacdo doorasho hal qof iyo hal coda ood ogeydeen national leaders forumkii iyo tallaabooyinka uu qaadaya wixii la sameynayay haddana way socon kari weyday oo waktiga lagu jira waddanka iyo xaaladdii adkeydba waxay keentay inay taasi socon weyday waxaan rajaynayaa markaa ama maanta shirkan muhiimadda iyo usii keentay waxay ahayd arrinta doorashooyinka soo socda ee 2021 hadda dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof waliba markaa ta'wiilka uu doono uu siinayo taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkaanna asal uu yahay in la wada tashado dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan sistemka federaalka soomaaliya xaqula inay tashadaan oo wax badan oo masiirka waddanka iyo iyaga gaarkooba ka tashada waxaa kaloo weelisa dowladda federaalka mas-uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga la gaadhayaay inay noqdaan mid laga wada tashado laysu yimaado la isla qaato meesha ay laysla wada gaari kartaa dadka soomaaliyeed marka waayeel waxaa la yidhi hortiisa caano loogu barxaa haddii reerku ay caano yareeyaan ay gaari waayaan oo la yidhaahdo ha lagu daro biyaha lagu daro qofka waayeelkii uu garanaya caanahan in wax lagu daray laakiin qofka ilmaha yari inay cad yihiin buu arkaa waxaa laga yaabaa inuunan aada u sii garanin marka qofka waayeelka isagoo arka yaa lagu darayaa si uu ogaado in baraxuu ku jiro dadku markaa shayga muhiimkii waxay tahay waxa ay qaadayaan iyo tallaabaday qaadayaani haddii barax lagu darayo iyo haddii sidooda lagu bixinayaba inay noqoto mid u wada muuqata oy wada arkaan oo markaas aan keeni karaynin tuun
iyo istuuri midna aan abuuri karayn waxaan rajaynayaa shirkan muhiimadiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmiya oo doorashooyinka iyo siyaasadda iyo wax walba iyo wax dowlad goboleedyada ka dhexeeya intaba saameyn ku yeelan doona ma laha iyaga dowlad goboleedyadu go-aanka gaarista arrimo badan oo waddanka u yaalla laakiin waxay leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dowladda federaalka mas-uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonina ayna u ahayn ayna doonaynin iyagu shaqo ayna iyagu lahayn inay qabtaane ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda taasina ay waddanka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karayso waxaa u baahan maanta culaysadana saaran waddanku inuu hore uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaalay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayay maantana taala dastuurku uu ka mid yahay dhamaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada in la fuliyo heshiisyadii horey loo soo gaaray London Conference Muqdisho baydhaba iyo qorshihii amniga qaranka waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkooda inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla waxaa lumaya oo baadayo kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay waqtiyadaas qabsoomaan ama la iska weydiiyo waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badan oo horey loo soo gaaray fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxa halkaasay marayeen xaggee inay marayeen maxaa ka qabsoomay maxay sababtu ay tahay waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka wada shaqayso kulligeed waddankani maanta midnimada iyo gacanta la isqabsado isku duubnidu galmudug waa tusaale idinku filan galmudug yaa tusaale idinku filan madaxweynaha senatarada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa maamulkiisaba intay gacmaha isqabsadeen wareegga ay sameeyeen iyo maanta halkay shalay ka bilaabeen iyo maanta isku duubnida maanta ku shalay wax sheeganaya iyo mid kaleba maanta reer galmudug halkay isla gaareen aan kulligeen gacmaha isqabsanno isku duubnaano ninka dowladda federaalkaa joogaayey maanta wuxuu mudan yahay in lagu ixtiraamo shaqada uu hayo isaguna uu garto cidda talada lale iyo waxa ka dhexeeya ka maanta bannaanka ka joogaana uu garto maanta ninkaa mas-uuliyadda federaalka joogaayey xilka saaran iyo culayska uu ogaado isaguna berri hadduu kursigaas tago say ugu sahlanaato inuu shaqadaa lala qabto inuu isaguna isku dayo qofka walaalkiiba markaa shaqada ku jira inuu wax la qabto oo uu la saxo oo uu gacanta la isku duubto ma aha ta federaalka keliya idanta isteydyada oo ay ahayd maamulada ilaa heer council iyo saddexda leebal ee dowladnimo in loo dhowaado oo mid heer councilkii iyo degmooyinkii iyo tii dhexe ee stateka iyo dowladdii dhexe sare ee waddanku lahaa inay intooda noqdaan wax isku xidhan oo ay tahay waxa inuu keenay federaalkan iyo culayskan inaan hadda dowladnimadeena dib u soo abuurno dagaalkii sukeeye iyo burburkii iyo kala tegistii bal intii isqaadan kartay iyo sida dastuurku usoo qorayba sidaa loo socdo aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa saaxiibaday inuuna shirkaan noqonin kii ugu dambeeyey ee shirar badan aan yeelanno la isku xidhnaado la wada shaqeeyo waxa ka soo baxayana ay noqoto shirkani gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan inaan wax cad oo aan iska weydiino annaga iyo dowladda federaalka iyo cidda naga dhexaysaba talada naga dhexayn karta la isweydiiyo oo la isla qaato waxaan aada iyo aada u soo dhowaynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo oo qof kasta oo siyaasi oo maanta aada uga fakeraya ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof kastoo caaqil oo siyaasi ha noqdeene qof waliba inuu ka fekero oo ka shaqeeyo isku haynta waddankan xasiloonidiisa sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaato waddankan uga dhici lahayd qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sida ugu habboon ee loo gaari karayo waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryaa shirkaani inuu dhali doono kuwo kale oo ku xiga oo ka fiican oo iyaguna kulli ay isla soo wada saaraan kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba wax maanta dadku ay ku qancayaan oo u muuqata
oo aragti siyaasadeed keenaysa oo walaaca iyo tuhunka dadka ku jiraay ay uga baxaan reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa gacmahaad saysataan wada waxaan aada uga warqabaa reer galmudug waa deeqsiyo horta hadda sooriyada iyo geela la uruurinayo iyo xoolaha la keenayo waxaan u malay inaan diyaaradaha ku qaadan doono oo ay ka badan doonto intaan joogno waxaan isticmaali lahayn bal wixii lagu qaadi lahaana aan kasii fakaro aad baan u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها دولة قلمدق مدن أحمد عبد كاري قورقور مدحوينها دولة كونفور قلبات مدن عبد العزيز حسن محمد لختقران مدحوينها دولة جبلان أحمد محمد إسلام مدحوينها دولة هيرشابيلة مدن محمد عبدي واره قدوميها برلمانك قلمدق iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa wufuudda golayaasha kala duwan ee labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee dowladda federaalka ah wufuudda la socotay madaxweyneyaasha ee heerarka kala duwan leh bulshada rayidka ah dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo magaalada dhuusamareeb madaxdeeda dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan marka ugu horeysa madaxweynaha dowladda galmudug xukuumaddiisa iyo golayaashiisa shacabka reer galmudug dhammaantood uga mahad celinayaa sida sharafta leh ay noogu soo dhoweeyeen magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb oo runtii aan uga mahad celinayna dadaalka wakhtiga kooban ee go-aanka in shirkan uu qabsoomo lagu qaatay iyo sida habsamida leh ee howlihii baaxadda lahaa ee horyaalla ay u maareeyeen waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaada iyo golayaashaada iyo shacabka reer galmudugba aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo wufuuddii la socday in ay ajiibaan kulankan iyo gogoshaan sidoo kaleetana wakhtigii loogu talagalay shirka ay ku yimaadaan iyaga oo howlo badan ay hor yaaleen kana hormariyey oo hortabinta ka siiyey hawshaan maanta galmudug loo fadhiyo oo ku soo beegantay xilli ku habboon xaqiiqda waxaa ka warramay madaxweynaha macnaha shirkan uu ku fadhiyo ujeedadiisa ugu weynna uu yahay in wada tashi ay sameeyaan dowladaha xubnaha ka ah sida dastuurka uu farayo iyaga oo ka tashanaya sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen waajibka guud ee ka saaran horumarka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya ninna kama qarsoona marxaladihii la soo maray qof walbana uu la socdaa marxaladda maanta aan marayno waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaynaa meesha dadka Soomaaliyeed maanta ay gaareen waxaa daliil u ah dhismihii iyo wakhtigii la soo baxshay iyo horumarkii dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed ee muddada uu maalgelinayay waxaa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhino maamuuska iyo sharafta iyo sida loo hagay ayaa waxay ku filan tahay dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin bisayl fiican ay u qabaan inay dalkooda maamushaan kuna filan yihiin magaaladan oo ognahay in magaalo muddo badan khilaafaad siyaasadeed uu ka jiray kala aragti duwanaan ay ka jirtay ay tahay magaalooyinka marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya xagga dawlad dhiska ugu dambeysay haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha guryaha dhismuhu waa dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan howlaha guud ee qaranka iyo toodaba aad baan uga mahad celinayaa xukuumaddan dhisantay
waxaan ugu mahadcelinayaa hogaaminta madaxweyne axmed iyo siyaasiyiinta la garab istaagay inay marxaladan cusub ay gacmaha isqabsadaan. waxaan si gaara galmudug ugu mahadcelinayaa dadaalka ay u galeen inay tooda xalliyaan, dariskooda oo puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan, gogashii qarankana ay dhigaan. intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo. furitaankii shirka madaxweynaha ku filnaa. annaga waxaan cabiraynaa keliya sidaan raalliga uga nahay in aan shirkan ka soo qayb galno oo taladiisa aan wax ka lahayn, oo maanta aan u fadhinno, oo aan ka rajaynayno inay ka soo baxaan wax dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku diirsadaan, oo walwalka ka hayay mustaqbalka dhinaca doorashada laga gudo. dabcan walwalkaas mararka qaarkood wuxuu ka imaanayaa xaaladaha la jecel yahay iyo duruufta lagu jiro. dabcan dalku muddo badan wuxuu ku taamayey in uu ka baxo nidaamka doorasho ee muddada 20 sano aan kusoo dhaqmaynay oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo qof iyo cod ah. waana waxa qof kasta oo Soomaaliya uu tiigsanayo. laakiin waxaa la rabaa markii tiigsigaas waqtigu soo dhawaado ay u muuqato in la xaqiijin waayo, talaa la rabaa in la isugu noqdo oo hadda wixii markaa laga badin waayo la qaato si meeshii la joogay aan dib looga dhicin. nidaamka doorashooyinka kale ee qof iyo codka ahayn naftarkeedu waa tan maanta halkaana soo gaarsiisay oo 20 sano aan kusoo dhaqmaynay. wixii wanaagsanaa ama adduunku uu yaqaani ma aha, laakiin waa waxna la eg oo marxaladaha aan uga gudbayno oo aan hadda aan ku jirno. waxaan u baahannahay marka dadka oo Soomaaliyeed oo dhan, madax iyo shacabba, inay mar walba ay qiraan duruufta la marayo oo xalka munaasabka ku ah ay isla rogrogaan oo meesha dadka u badan yahay gacmaha la isku qabsado. dabcan waxa laga shaqeynaya waa siyaasad, kala aragti duwanaan baa imaanaysa, waxaa imaanaya masaalix kaleeto oo dee arrimo siyaasiya ka dhalan kara, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka weyn maslaxadda dalka, midnimadiisa, horumarkiisa. nidaamka federaaliga aan qabsannay waa nidaamka maanta kalifay inaan dhursamareeb ku shirno. dowladaha kobcaya ee xubnaha ka ah dowladda federaalku waa masaalix iyo adeeg u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto. magaaladan waxaan ku nool oo maanta wada jooga dadkii Soomaaliyeed qofi kama maqna. magaalo kasta oo Soomaaliyeedna sidaasay u diyaar garoobaysaa inay Soomaalida oo dhan ay ku wada noolaadaan, ka ganacsadaan, martigeliso, gacmaha la isku qabsado. nidaamka federaaliga ma aha wax dadka kala geynaya, nidaamka federaaligu ma aha wax dadka aan horumarkiisa wadajir loo qabsanayn. waa shaqadii oo la kala qaybsaday. hadday taasi jiri lahayn maanta markaan Axmed Qoorqoor halka ugu nimaano hadda gacantaan ku dhegi lahayn oo shaqadaan la qabsan lahayn oo waxaan quruxda badan ma soo baxeen, waayo wixii la isla wada maamulo foolxumaa ka soo baxda. marka waxaan rajaynayaa kala qaybsanaanta dowladaha ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa wax iskabaya, waa shaqooyin ay la isu qabanayo, ugu dambeynna loogu adeegaya bulshada Soomaaliyeed oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax loogu qabanayo. waxaan ku faraxsanahay kaftankaba aan ku dareen meeshii federaalka lugta laga hayn jiraa maanta fadhinaa. marka waa horumar weyn oo la gaaray. taasi waxay daliil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray, annaguna waa aqbalnay, waana ku taageeraynaa. waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay. waxaa qurux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray deegaanada galmudug wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayna idaacadaha iyo telefishinada. wanaag badan, dad u heelan, dad dadkooda ogol, dad israba. dadka haddaan loo tegin waa la ysaga warramaya. waxaa keliya Soomaali daawo ah waa inay isu timaadaan ay wada hadashaan. aan wada hadalna waa aan heshiino. waxaa daliil ugu filan Soomaalidu meelaha qaybtooda inay weli ka dhiman tahay
kulankeenii ugu dambeeyey ee aan gaalkacyo ku yeelanay annaga iyo dowladda galmudug isbuuc ka hor howlo badan oo galmudug laga waday waxaa lagu guulaystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la fugo dadka Soomaaliyeed hadday runtii isku sheegin wax ka xumo been isku sheegayaan mararka qaybtood waxaa moodaa waayadan dambe in dadka la ismarin habaabinayo waxaan aaminsanahay Soomaali waa kala shakisantaa weli waa xaqiiqo jirta waxa kaliya ku xalin kartana waa inay aqbasho inay wada hadlaan oo isxaliyaan oo hore u socdaan oo sanbeen isu sheegin siyaasaddan la iska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo dalkeenna waa ku filannahay dadkiisu dalkeenna waa ka badan yahay deegaanadeennu nolosha hadda ay ku nool yihiin waxay nagu noqonaysaa dembi waad ogtihiin dalkii meelo yaryar baa ka iftiimaya dalkii dibadhac weyn baa ka jira dadkiisii adeegyadii aasaasiga ma haystaan noloshii aasaasiga ay ahayd tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo xataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan mas-uuliyad weyn baana saaran waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo dee hawsha waaba lala qabanaya waa sahlanta haddii madaxda inta hadda uu madaxweyne qoorqoor gartay markii uu talada ku guulaystay war tartankii waa dhammaaday kaalay aan wax wada qabsanno intaa hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagi muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaa la galo haddee hadalka fiican oo ayaantan waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya waqtiga mana la kala badinayo runtii ninba ninbu dabala haysanaya marka waxaan qabaa inaan hore eegno een dib aanan eegin waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo shir taariikhi ah waxaan rajaynaynaa in uu najixidiisu uusan ahayn shirkan iyo waxa ka soo baxeen najixintiisu ay tahay dadka Soomaaliyeed ay siday u qaataan waxaan aad u rajaynayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka oo halka fariin uga dilayaa shirkan waa shaqo madaxda dowladda federaalka loo qabanayo waa dowladihiinnii aada madaxda u ahaydeen waa dalkiinnii dadkii mas-uulkeeniga ahaa waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa howlo ay rabaan inay inay fududeeyaan sidii dalka uu hore ugu socon lahaa waxaan ku rajo weynahay in dalku doorasho waqtigeeda ka dhacdo si nabada ku dhacdo natiijo lagu wada faraxsan yahay oo lagu qanacsan yahay ay ka soo baxdo dalkuna uu marxalad labaad ugu gudbo midda quruxda badan ee qof iyo codka ah waynu gaari doonaa haddii ilaahay idan ka dhigo laakiin maanta ma bilna mar haddaysan bilnayn wixii aan ka badin weynaan ka tashanno aana aqbalno wixii aa haysatid baa la iimaansadaayo wixii aan kari karno aan iimaansanno hadba inta aan kari karno waxaan ku rajo weynahay ambishanka badan oo runtii sida caalamku nala jecel yahay waa tixgelineena laakiin tabarteena aan guureynaa haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan beesha caalamka aan halka runtii uga dirayaa baaq oon ugu mahad celinayo muddadii dheerayd siday dadka Soomaaliyeed u garab taagnaayeen siday qayb ugu ahaayeen siday dadka Soomaaliyeed cagooda ugu istaagi lahaayeen taageerada joogtada ah waan uga mahad celinaynaa sidoo kaleetana waxaan aad u rajaynaynaa annaga ka xog ogaalsana wixii aan ka badin weyno inay nagula qancaan oo nagu garab siiyaan waxaa mararka qaarkood siyaasadda Soomaaliya wareeriya dana kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo aan dadka Soomaaliyeed kaliya ku koobnayn ee dana dhinacyo kale ka yimaado waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay walaalahooda iyo saaxiibadooda waxay tarayaanna ay yaqaanaan waxa iyaga ay kala mudan yihiin oo istarayaanna ay u caddahay waxaan runtii jeclahay inaan baaq kaleeto u diro dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan filashada ballaaran ee galmudug laga filayo galmudug waxa laga filayo ninkii galmudug yaqaan wuu yaqaanaa waa dad wax walba kara wixii hore ay sameeyeenna wax fiicanna waa karaan hadda waana ka sugaynaa insha allah
aad baan ugu kalsoonahay kartida iyo dadaalka markii hadda shirka la qabanaya waxaa la lahaa war dhowr maalmood ku qaban karaa galmudug waxaa yar dhowr maalmood oo ku badan tahay gelina ku filan waana muuqataa maanta waana ka rajaynaynaa waxa ay qabteen iyo wax ka badan oo wanaagsan inay qabtaan aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu